السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markale iyo muuqaal cusub kusoo dhawo BTech muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay aan uga hadlaynaa sideen Gmail uga bedelaa passwordka kusoo dhawo muuqaalka marka ugu horeysa ayaad u baahan tahay inaad bedesho passwordka ciwaankaaga ama passwordka Gmail-kaaga ama furaha ciwaankaaga aad bedesho waxa aad sameynaysaa meelo fara badan baa jira oo aad geli karto sida inaad website-ka caadiga gasho ee Google-ha ama browser-ka doonayso inaad ka gasho markaasi ama inaad setting-ka tagto oo halkaasi maaragtay aad kasoo bedesho waa meelahaas oo dhan baa laga bedeli karaa marka imika bal waxaan tagaynaa setting-ka mobilkaad haysato waxaad soo furi doontaa qaybta settingska soo furi doontaa marka waxaan rajeynayaa mobilka aad sidata inuu yahay kan imika harta aan ku duubayo oo kale ama versionkiisu uu yahay 9 si uu markaasi maaragtay halkan uu kaaga soo baxo Google haddii uu intan ka hooseeyo ama mobilkaaga versionkiisu 7 iyo meelahaas ka hooseeyo halkan caadiga aad Google markaasi maaragtay ka dhex raadin doontaa oo sida setting-ka oo kale ah hadba meesha ay kaaga soo baxdo waxaad samayn doontaa setting-ka marka soo gasho halkan aad degi doontaa markaasi ay ku qoran tahay Google ay ku qoran tahay ama Google oo ka hooseysa accounts-ka marka Google-ha marka soo ugu dul dhufato halkan wuxuu kaaga soo saari doonaa markaasi ciwaankii kugu jiray mobilkaaga ama Gmail-kaad ku isticmaalaysay mobilkaaga halkan waxaa ku jira adeegyo fara badan inna waxaan u baahanahay imika in passwordka bedelno halkan aad markaasi maaragtay ku dul dhufan doontaa manage your Google account-kaaga haddii aad doonayso ciwaanka inaad bedesho oo ciwaano badan ay kugu jiraan halka tigtaar baad ku dul dhufan doontaa isla markaas halkan waxa uu kaaga soo saari doonaa ciwaanadii ama Gmail-ladii kugu jira mobilkaaga ka aad doontaad markaasi ka dooran doontaa imika kanaan dooranna markaasi aan ka bedelinaa passwordka manage your Google account ku dhufo markaad intaan saa ugu dul dhufato qaabkan markaasi kugu soo saari doonaa qaabkan marka uu ku soo saaro waxaad dooranaysaa halka ay ku qoran tahay personal information ama personal info ay ku qoran tahay marka saa doorato halkan waxa markaasi kaaga soo bixi doona sawirkii ku saarnaa oo aad sawirka halkaad ka bedeli karto halkan waxa ku soo baxaya magacii odgaarka iyo magacay ku qoran halkan taariikhdii baa ku qoran dhalashadaada halkan jinsiyadeeda baa ku qoran halkan waa passwordkii halkan waxa weeyaan emailkii iyo maaragtay recovery-giisii halkan waa lambarkii markaasi hadaba passwordkaad markaas saa ugu dul dhufanaysaa passwordka markaas saa ugu dul dhufato waxa markaas ku geenayaa website-ka ama browser-ka caadiga ah waa kan markaasi halkan waxaad gelin doontaa passwordkii kugu jiray markii hore kaad ka bedelayso ayaad gelin doontaa haddii aadan passwordka garanayn oo aad passwordka ilowday ama furaha aad ilowday waxaad ku dul dhufanaysaa halka forgot password aad ku dul dhufan doontaa imika haddii aan forgot ku dul dhufto waxa uu soo saarayaa geli passwordkii kugu dambeeyay haysato haddii aad maaragtay garanayn passwordkii kugu dambeeyay isticmaashay halkan aad ku dul dhufan doontaa markaasi try another way marka ku dul dhufato waa kan halkan waxa uu kuu soo dhigayaa log screen-kaaga isticmaal oo ka fur use your screen log haddii aadan passwordka screen log-gaaga garanayna try another way day ama jid kale isku day markana waxa uu ku soo dhigayaa furahaas marka halkaas uu maaragtay labadaas dooro ka kala oranaya markaad yes tiraahdo halkan wuxuu ku soo saari doonaa inuu markaasi maaragtay approve gareeyay oo aad bedeli karto passwordkii ayuu maaragtay halkaas marka uu ku soo saaraya oo ka password cusub samayso buu ku yiri password cusub baad samaysan doontaa safe password saasanad markaasi maaragtay uga bedeli doontaa haddii aadan iloobin oo aad passwordka maaragtay aad isticmaalayso aad rabto inaad ka bedesho oo aad doonayso maaragtay inaad ka bedesho ka waxaad samaynaysaa passwordkaaga caadiga mad gelinaysaa hadda imika waxaan sameynayaa halkan aan markaasi ka furi doonaa ciwaankayga ama fingerprint-kayga kaga furi doonaa halkan markaa waxa uu soo dhigayaa furo cusub gasho furo cusub markaasi halkan gelinaya imika halkan waxaan ku qori doonaa furaan gelin doonaa halkan furaan gelin doonaa kii labaad baan haddana ku laba celinayaa hadda fura ayaan geliyey
halkaas sare markaad geliso furaha cusub haddana kan hoose waad ku laba celinaysaa waa inuuna 8 xaraf ka yaraanin furahaagu 8 xaraf waa inuuna ka yaraan safe password baad isla markaasi markaad oran doontaa sorry kan hoosan qalday safe baad oran doontaa safe markaad tiraahdo sorry waxa yar qaldan passwordkaasan qaldaya halkaa markaasi change password baan markaasi oran doonaa change password markaan idhaahdo okay your password was changed u bedelmay markaa get start baad oran doontaa si maaragtay aad u guda gasho wixii aad qabanaysay waxaad halkaasi markaa samayn doontaa haddii aadan passwordkaaga iloobin oo aad kii hore uun ka bedelayso halkaa passwordka marka ku dul dhufato okay markaasi markay halkan ku soo baxdo halkan markaasi waxaad gelin doontaa passwordkaaga maragtay aad ku isticmaalayso gmailkaaga aad ku isticmaalayso markii hore oo aadan iloobin ayaad markaasi halkan gelin doontaa markaad geliso waxaad oran doontaa next waxa yarba sugi doontaa next marka aad tiraahdo halkan waxa uu ku soo saaraya markaasi inaad password cusub ama maaragtay furo cusub aad gashato ayuu halkan ku soo saaray oo ka new password dabadeedna confirm new password baad oranaysaa dabadeedna change baad oranaysaa halkan imika waxaan gelinayaa furo cusub si aan maaragtay markaasi aan u bedelno furihii hore imika kan saasan oran doonaa halkanna waxaan ku laba celinayaa furihii aan imika samaystay halkan aan markaasi ku laba celinayaa waniga hadda imika waxaan geliyay furihii change password markaasi ku dul dhufan doontaa markaad inta geliso change password baad oran doontaa hadda saas ayuu markaasi maaragtay kuugu bedelayaa hadda waxaan isticmaalay kii hore oo waa passwordkii hadda aan ku bedeshay marka halkaasaad ka bedeli doontaa change password markaad tiraahdo si automatically ayuu markaasi kuugu bedelmi doonaa oo passwordkii hore aad haysatay sidaas maaragtay uu ku tegi doono ood kan cusub markaasi u adeegsan doontaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doonto muuqaalkan sida looga bedelo passwordka ciwaankaaga ama gmailkaaga aad iyo aad baad mahadsan tahay nagu soo biir like-ta iyo share-tana nagu dhiirigelisaan muuqaalo fara badan soo gelino wassalaamu calaykum